السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما قيادتي وين سلامي عشان wuxuu ku saabsan yahay sideen u fur lahayn window xp geeni haddii aan passwordka hilmaamnay sababtoo dadka qaar badan waxa arkaysaa markay isticmaalayaan passwordkeeda dhaqso ay geliyaan ama waxyaabo ay xasuusin ay password aan u isticmaalaan sabab darteed marka windowgii uu ka xirmaa. Marka waxaan sharaxaynaa window xp sidaan passwordka aan u fur lahayn. Welcome to my YouTube channel. marka waxaa ujeedaa window xp gaaga sida markuu kusoo baxo password kasta aad isticmaashid wuxuu ku leeyahay passwordka gelisa waa error aan gelino kadib wuxuu ku leeyahay passwordkaagu waa kaa qaldan yahay. si aad passwordka u furatid marka dib ayaa restart ugu sameynaynaa turn off ayaan leenahay kadibna restart ayaan leenahay. kadib markuu restart aado waxaa lagaga baahan inaad taabatid F8 sida uu aado safe mode. F8 waa inaad riixdaa F8 waa inaad riixdaa si uu ku geeyo meeshaan. marka waxaa lagaga baahan inaad samaysatid falaarta kore ayaa isticmaalaysaa si aad u tagtid midda hoosena downkana waxaa u isticmaalaysaa hoos u degid. marka waxaad samaynaysaa safe mode ayaad tagaysaa kadibna safe mode markaad tagtid waxaad leedahay enter ayaa leedahay kadibna wuxuu ku leeyahay enter dheh si safe markuu ugu furo. marka waxaa ujeedaa safe modekii ayaa wado marka insha Allah si toos wuxuu ku geynayaa qaybta safe modeka. marka sidan ayaa ku soo baxayso. si aad u furtid username-kaaga marka hore waxaa laga baahan inaad tagtid administrator-ka waa inaad furtid kadibna awood waxaa u yeelanaysaa marka inaad username-kaaga dib usoo geshid kadibna waxaa leedahay yes dheh safe modeka sida kugu shaqeeyo. kadib waxaa leedahay start kadibna waxaa leedahay control banner kadib waxaa laga baahan inaad tagtid username-ka isticmaalaysid ayaa laga baahan inaad tagtid qaybta userska kadib waxaad tagtaa user account ayaa ku dhufanaysaa kadib account-kaaga magaciisa ayaa double click siinaysaa kadibna waxaa leedahay remove password katir passwordka kadibna remove password ayaa leedahay ama katir ama ka masax. kadib sidaas waa ujeedaa username-kaaga wax password ma lahan waa ujeedaa haddii aad hadda password cusub waa u samayn kartaa u baahan inaad u sameyn hadee kale iska soo xir kana iska xir kadibna restart ku sameey restart dheh kadib waxaa ogaanaysaa passwordkii sidaas ayaa ugu turtay window xp ga. insha Allah binagina waxaan soo socdo window 8ka 7ka iyo 10ka insha Allah biidnillahi kariim. marka window xp ga waa noo furmay qaybtii welcome-ka ayaan joognaa hadeer. marka waxaa ujeedaa window xp gii wax password lama weydiin si toosa ayuu usoo galay. markaan startiga fiirisid waxaa ujeedaa ifham inaan soo galnay sida marka window xp gaagii sidaas ayaa passwordka ugu remove garay kartaa ama aad ugu bedeli kartaa. insha Allah binakin waxaan malay doonaa inaad ka faa'iideysan doonto waxaana loogu talagalay casharadan ardayda bilowga inay ka faa'iideystaan iyo qofka aqoon u lahayn qofkii aqoon u lahaana uba yaqaanaaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazaakum allahu khayran.